السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولك واحد بدن بالليل والسوء لويي وعلى يرتا وحن محمد كوين إن دايتك يهانتيدا ينفتا لقبل اللي قيسته لقبل باتيو لكن هذا الشرعية دي لقبل اللي قيسته هذا وعلى مركا أولك واحد هو والصحافات يأركتي يساس يلاتها معهن وعلى إنه ما أنت قاعد مسيري إنه كقاعدنا أنت لجاه ليه واجي ورين بيننا ضيعني وإنه دردرة إن شغل كلها إنقلّ ما أنت وحلا هاي أنت الصومالي باهي أيضا سقطوا باهي لا يقروا ونقولي ما نيسو إلى أنه قوان كقاعدنا أنه بناك كمرة الصومالي اسكونا تشنو قوان كأننا جارنو خرمر كأننا سمايسنو أول بان ضيعنا أنه حمر بان كسر شقيني والله العظيم هو قامان تشوفني بوليسكا والله تليك حقين كذا حتى هنا أوران كريم واحد خلدان تعدي حتى خلد 70 ماشي اللي يرادوا مقدشو وحي عاصمة الصومالية بربر حدود عينا ده كان هذا قبلان كوابتر صدا هي الصومالية كله أن حجاس أن متقنا مركز ديجان أولهين أنت هو اللي بدي باتي وحلو يجي استدبات هذا فربضن ولا لاي ولا قدعي ولا بركعي iyagoo caruurtii iyo wixii markaas ay qaadan karaan ilkaha ku sitay xamar ka baxeen sida darteed inaynu ka hadalno baaqna ka soo jeedino haday darab u dhintaan xildhibaankii qoray mas'uuliyadda hantidaada waa la yaqaanaa in mas'uuliyadda iyagu ay qaadayaan barnoon horta waa loo baahan yahay moogtay waayo inaga meesha inoo joogaan waxa soo haray xamar waa guri Soomaaliyeed caasimadda Soomaaliya u tahay cid gooni u leeyahay ma jirto absolutely cidna cid ugu ma hanjabi karto taasina waa mid weeye marka taa anigu waxaan rabaa baaqeena inaynu ku darno taasina waxa weeye in mataqaana in yiraahdo weeye waxa soo hartay doorashada tan iyo xeerka iyo waxa lagu wado midna dastuuri ma inta dastuurku waa ka soo horjeeda ninka la yiraahdo gudoomiye mursal shalay hadalkiisa waa wada dhageysateen wuxuu reebutland ku calaamadiyay inay muqdisho ka soo horjeedaan fawdana ay wadaan wax la qaadan karana maaha ninka xaqiisa ka hadla waxa lagu calaamadinayaa fidmoole inuu yahay wala la hadanayaa waana loo dhaaran dastuurka qabyada Soomaaliya haddii lagu heshiin waayo anigu waxaan qabaa reer Puntland waa soo yimaadeen waa ay tashadeen go'aamadii masiirka ka soo baxay wuxuu noogu jiraa ajandaha in la soo hormariyo Soomaaliya haddii wada tashan weysay in la kala tashado weeye عاصمة الصومالية الصومالية نمبر واحد حصة الصومالية 4.5 وحي سوكرنا وحلو قيب سنة يا أولولي هاي و 4.5 أرنتان تاجن waxaan arkaa hadda mudanayaal ku koobayo oo kaliya dawladda federaalka way lead gareynaysaa boob iyo fawdo iyo boob dawladnimo ka socda laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo waxa qayb ka ah maamul goboleedyada Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda muxaafid iyo mucaarad waxa la takoorayaa oo si gaar ah faquuq loogu hayaa xamar loogu hayaa Puntland iyo Jubbaland mar haddii caasimadii Soomaaliya oo maqaamkeeda in la fariisiyo ay ahayd ay cid gaari rabto inay saami ku yeelato kuraasna ku kororsato waxaan aad iyo aad u soo jeedinayaa in aynu halkan ku qaadano go'aan adag oo masiiriya